qabad fara badan baa gobolka saaxil wasaaraddu ka qabatay sanadihii ugu dambeeyay. halkani waa mid ka mid ah xarumaha ugu weyn dalka ee laga dhaliyo korontada ku shaqeysa tamarta cadceedda waxaana mashruucan uu qayb ka yahay dadaalada ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu jirto hirgelinta iyo horumarinta mashaariic waaweyn oo lagu horumarinayo adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka. mashruucan waxaan rajaynaynaa in wax weyn ka taro baahiyaadka korontada magaalada Berbera khaasatan iyadoo ay tahay isha dhaqaalaha ugu weyn ee waddanka ama economic hubka ugu weyn ee waddanka oo ay ku taala dekadii ugu weyneed geeska Afrika taasoo rajaynayno inuu wax badan ka taro isticmaalka macaamiisha iyo isticmaalka ganacsatada iyo warshadaha sidoo kale inuu soo jiito warshada ku soo biiraan oo noqdo meel koronto la isku halayn karo. halka waxay noogu rakiban 8 megawatt oo solar ah 7 waxa bixisay imaaraadka 7 bixiyay midna waxa bixiyay dawladda Ingiriiska iyo 2 battery. mashruucani guud ahaan waa mashruuca ugu weyn waddanka oo dhan waana mashruuc aad arkaysan intuu leeyahay baaxadiisa intuu ku fadhiyo waana mashruuc maamulkiisa iyo dhismihiisa iyo hawshiisa gacanta ku haysa wasaaradda tamarta iyo macdanta wasaaradda Soomaaliyeed la bilaabay ilaa maanta dhex taagan oo hawshiisa maalinlaha gacanta ku haysa runtii mashruucan waxyaabaha uu kaga duwan yahay mashaariicda kale waxa kamid ah waa mashruuca kaliyaata ee u shaqeeya sidii loogu talagalay mashruucan waxa ka faa'iideysta deegaanka Berbera magaalada Berbera iyo meelaha xarumaha waaweyn ee ay ka kowtahay dekada iyo ganacsiyada ku dhaxyaala magaalada Berbera mashruucan wuxuu wax weyn ka taray baahiyaadka koronto isagoo korontadii qiimihii ay hore u haan jirtay ama taariifadii korontada hoos u dhigay mashruuca ay ka furisay wasaaradda tamarta iyo macdanta solar systemka runtii aad ugu faa'iidnay mashruucaas oo runtii faa'iido dhan u ah magaalada iyo gobolka iyo dhammaan Soomaaliland mashruucu waxa faa'iido ku leeyahay waxa kamid ah waxaan ka faa'iidnay leerkii oo marka hore qiimo badan laga qaadi jiray laakiin hadda qiimo jaban laga qaado marka hore waxa laga qaadi jiray 0.39 laakiin hadda waxa laga qaadaa 0.30 waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda tamarta iyo macdanta iyo cid kastoo ka qayb qaadatay iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Soomaaliland waa dal qani ku ah kheyraad kala duwan oo ay macdantu ka mid tahay waxaana wasaaradda tamarta iyo macdantu ka bilowday deegaamada hoos yimaada degmada Sheekh ee gobolka Saaxil mashruuc macdan baadhis ah. mashruuc meel fiican buu noo marayaa si fiican buu u socdaa saddex qaybood baa mashruucani uu ka kooban yahay qaybta geophysics-ka oo isticmaalaysa qalabka loogu talagalay in macdanta lagu baadho macdanta dhulka hoosteeda iyo qaybta maabinka oo dhagxaanta iyo noocyadeeda baan garanaysa oo iyaguna khubaro ku takhasustay ah iyo qaybta soil sampling ama geochemistry-ga la yiraahdo qaybtaas oo iyaguna sampling ka qaadaya wixii ciidii meel kasta oo carro ka qaadaya carradaas hadhow la soo baaraya ama ciidda wixii si looga ogaado macdanta ku duugan eriyadan ka shaqeynayno ilaa hadda mashruucu si fiican buu u socdaa. halkan aan joogno waxa weeyaan goobtii aan ka wadnay sahaminta macdanta qalabkan waa geophysics-kii marka qaybta waxa weeyaan base-kii oo halkan la dhigaa oo lagu xiraa muxuu ahaa baashiisa marka waxa lagu talagalay base-kii inuu xogta ururiyo oo kaydiyo marka inta la shido ayaa xagga lagu ilaaliyaa kolba marka 30 minute ba mar baa lagu noqdaayo waxa la eegaa in batterigiisa hawlihiisa wixii si u socdaan waan shidnay imika waa diyaar marka qalabka kale insha Allah taala bilaabo shaqada ayuu kan isku mar loo shidaa kadibna kan wuxuu record gareynaya daatada kan xogtu qaadaya. sidoo kale mas'uuliyiin ka socda wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa dhagax dhigay xanaanada tuulada Burcakibir waxaana muddo kadib la dhameystiray dhismaha xanaanada Burcakibir xanaanadan oo ay deegaanku baahi weyn u qabeen oo ay hirgelisay wasaaradda tamarta iyo macdantu.
halkan waa tuulada Beeye Dhaadheer oo qiyaastii 40 kiiloomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Berbera waxaana ay wasaaradda tamarta iyo macdanta ka hirgelisay dhismaha xanaano ay dadka deegaanku baahi weyn u qabeen. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waxa la Ismaaciil Bakar Liibaan oo ka tirsan deegaanka Beeye Dhaadheer. Deegaanka Beeye Dhaadheer baahi weyn ayuu u qabay xanaanada Beeye Dhaadheer laga dhisay. waxaan uga mahad celinaynaa wasaaradda tamarta iyo macdanta ee noo dhistay xanaanada MJS. waxaan u baahanahay in loo qalabeeyo haddii aan nahay deegaanka Beeye Dhaadheer. halkan waa tuulada Beeye Macaan oo ka tirsan gobolka Saaxil waxaana wasaaradda tamarta iyo macdanta ka hirgelisay xanaano ay dadka deegaanku baahi weyn u qabeen. annagoo magaalada la Beeye Macaan waan u mahadnaqaynaa wasaaradda noo dhistay dhiska baahi aad u badan baan u qabnay waan ku mahadnaqaynaa wasaaradda macdanta iyo tamarta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxbay noo qabatay laakiin waxaanu leenahay wixii naga dhin wasaaradda caafimaadka ha noogu darto wixii naga dhiman kala qariino umulaha aad baa loogu dhibaataysan yahay meeshuna waa dad badan tahay dadkeeda aad u badan yahay deegaankeedu waxaanu leenahay ha naloo furo ha naloo qalabeeyo. ceelbaxay oo ka tirsan gobolka Saaxil oo qiyaastii 120 kiiloomitir u jira magaalada Berbera ayaa ka mid ah deegaamada ay wasaaradda tamarta iyo macdanta ka hirgelisay dhismaha xanaano. ilaah baa mahad leh waxaanu joognaa meesha la yiraahdo ceelbaxay xanaanadii sanadkii hore loo dhisay waana wasaaradana waa ugu mahad celinaynaa. waxaan baliyo bogaadin uga jeedinayaa wasaaradda tamarta iyo macdanta ee noo dhistay xanaanadan waxaan kaloo aan iyadana ka codsanayna wasaaradda caafimaadka maadaama ay noo dhistay wasaaradda tamarta iyo macdantu iyaduna inay noo qalabayso baahi badan baa ku xeeran deegaanka sidii baanu dumarka markay fooshaan aanu markaanu gaadhi la weyno awrba annaga gaadiid noo goobta caafimaad noogu dhowina waxa weeyaan waa Berbera gobol ahaan isagana sida la wada ogyahay 120 kiiloomitir baa halkaanu joogno ay nooga jirtaa degmada Berbera. Armo ayaa sidoo kale wasaaradda tamarta iyo macdanta ka hirgelisay howlka shirarka ee tuulada waxaana sidoo kale wasaaradda tamarta iyo macdanta gaari ambalaas ku wareejisay tuulada Qaraar. wasaaradda tamarta iyo macdanta waxay xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Berbera ka hirgelisay dhismaha xarunta wasaaradda tamarta iyo macdanta ee heer gobol oo waqtigan la dhameystiray wajigii koowaad ee dhismahan.